waxaa loo maleynayay in uu noqonayo kaakaha cusub ee kubadda cagta. waxaa loo maleynayay inuu noqonayo kubad sameeyo fiican oo Brazil u soo baxay, laakiinse 2017 intaasi oo dhanba waxay u muuqdeen kuwa dhammaaday. maxaa ku dhacay Oscar, ciyaaryahankii hore ee Chelsea? baasas fiican oo bilic leh iyo aragti dheer ayaa dhammaantoodba uu isku darsaday sanadii 2012 si uu u noqdo xidig wanaagsan. kaliya 19 sano ayaana uu jiray. Chelsea waxa uu kaga mid noqday haduun lacageedan 37 milyan ku darso bilaabashadii ugu horeysay ee tartanka Champions League. Oscar ayaa dhabil qurux badan ka dhaliyay kooxda Juventus, isagoo goolkaasina uu noqday mid lagu xasuusan doono oo uu daba mariyay goolhayihii Bianconeri Buffon. Oscar ayaa Chelsea kula guuleystay tartanka Europa League sanadii 2013, waana xilli ciyaareedkiisii ugu horeysay ee Yurub. taageerayaal badan ayaana saadaaliyay in Oscar uu noqon karo xirfadle aad u cajiib ah, laakiin way qaldanaayeen, mana noqon sidii ay Chelsea ka rajaynaysay. dhinaca Brazil waxaa Oscar gaaray fariimo aan wanaagsaneyn, wuxuuna xulkiisa u dhaliyay kaliya 1 gool intii ay socotay musiibadii soo gaartay Jarmalka koobkii adduunka 2014, ciyaar ku dhamaatay 7 gool iyo gool. 2017 Oscar 5 sano uu joogay gudaha England, wuxuu ku guuleystay 2 jeer Premier League, waxaana doondoonaya tiro kooxo waaweyn oo Yurub ah oo iyagu waqtigaa rumaysnaa qaab ciyaareedkiisa sida Atletico Madrid, Juventus, Inter iyo AC Milan. laakiin isagu waxa uu qaatay go'aan lagu tilmaamay shock, isagoo da'diisu ahayd 25 jir. waxa uu ku biiray horyaalka China. go'aanka ugu biiray waxa uu ku tilmaamay mid ku dabaqan dhinaca qoyska. ciyaaryahan waliba oo kubadda cagta ciyaara ama qof waliba oo shaqeeya waxay rabaan in ay shaqeeyaan lacag si ay u caawiyaan qoyskooda. waxaan ka imi Brazil, waana faqri, waxna ma haystaan. Oscar wuxuu ku soo koray faqiirtinimo. aabihiisa wuxuu ku geeriyooday shil gaari xilli da'diisu ay ahayd 3 sano jir, wuxuuna u aaday China qoyskooda dartood. bilaabasho adag kadib, Oscar hadda waa mid ka mid ah ciyaartooyda ugu fiican Chinese Super League. wuxuu ka caawiyay kooxdiisa Shanghai SIPJ inay ku guuleystaan horyaalka 2018. wuxuu noqday caawiyaha ugu sareeya China, isagoo caawiyay 16 gool halka uu dhaliyay 12 kale. inkastoo aan looga wacin Brazil tan iyo sanadii 2016, waxaan rajaynayaa marka uu dhammaado qandaraaskayga halkan inaan ka caawiyo in kooxdeedaha ay ku guuleysato koobab. waxaan dib ugu laaban doonaa koox weyn oo Yurub ah, waana sida aan jeclahay si aan ugu ciyaaro heer sare. Oscar ayaa hadalkaasi laga hayaa. Oscar hadda waa 27 sano jir. ugu dambeyn waxay u muuqataa inuusan noqonaynin kaakaha cusub ee kubadda cagta iyo kubad sameeyo cusub oo Brazil ay yeelato.